السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا الدعوة ضيال ورباهنتي تشيس ميديا يسمع الحرس عقال قضبضا نستو تاج دونا وحكم إذا كوب يطمن محبوس وأي سومالي لانسي ديسي سجالي لبعتك بيش أبريل وكو تاريخ إنسان ما أنت وين صور دافني أن كوب يطمن كان محبوس أو ساعدني من كتشجع عاصمة ذكي الكشنات كسوغن سيدو كلا بتلان وحي شجعن كوب يطمن كان محبوس إن أي سجال محبوس كوي بسن دونان halkaasoo weli aan xoga rasmiya ka hayn in ay iyaga laftigoodu jigjiga soo gaareen oo lagu kala wareegayo iyo in ay meel kale joogaan bal sidoo kale garaadadii dhulbahantay oo shir degdega 28 bisha oo maalintii shalay ahayd ee soo dhaafnay ku baaqay shirkaasoo anaan iyo ismaandhaaf badanna ka jiray bal qodobada iyo qodobo kale baan isku toogi doonaa aragtida commentiga igula wadaag waayo sidoo kale wad share garanaysaa barnaamijkan koob iyo tobanka maxbuus ee Somaliland sii deysay 29 bisha Abriil iyadoo dhammaanba laga qariyay barihii bulshada iyo sawirradii sawir qaadayaashii dhammaantoodba laga qariyay halkaasoo sawirradii ugu horreysay lagaga soo qaaday caasimadda kililka shanaad ee magaalada Jigjiga arrinkaas oo dadka qaar oran karaan waa arrin qarsoodiya ama siyaabo hoose loogu heshiiyay oo laga shiray iyadoo horeba loo sheegayay in madaxweyne Deni iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal madaxweynaha Somaliland ay arrimo siyaasadeed ka wada hadleen iyagoo khadka telefoonka iyo baraha bulshada kala duwan ku xiriiray waayahay waxa aan weli xoga rasmiya laga hayn arrimaha baraha bulshada la soo gelinayo ee maxaabiista la isku iibsadayo iyo arrimo laga heshiiyay bal markaa waxaynu eegaynaa koob iyo tobanka nin toban waa isku qolo ninna qolo gooniya sida la sheegay wararka xogagaalka ay ugu soo gaareen ayaan isu taagi doonaa markaa fikirkaaga ka dhiiban doontaa wad faraqayn doontaa koob iyo tobanka nin toban waa mateerteen sida la sheegay oo waxa weeye mateerteen sidoo kale waxa ku jira ninkii la oran jiray aarsade ninka wala garanayaa ilaa maalintii la qabtay sidoo kale waxa ku jira ninkii la oran jiray Cabdalle waayahay aan idhaahay sidoo kale waxa ku jiray ninkii Cabdi Mudalib ee la wada garanayo waxa kale oo ku jiray ninkii aarsada loo jiray anigu malaynayo markaa ma jeertaan in rag saameyn la ka haray waana raggii aan u haysanay raggayaga raggaas waa raggii ma jeerteen u ooyay Cabdi Mudalib walaalkii wadikii garanaya wixii canaan maanta xukuumadda Puntland kaga dhacaysay ee uu lahaa Faysal Cabdi Bootaan bay ku doonayaan walaalkay haddaanad awood u lahayn inaad Faysal Cabdi Bootaan gacanta inoo soo geliso dee runta ii sheeg ninkii sidaa ahaa maanta si bilaa shuruuda ayuu Jigjiga ku joogaa isagoo ka baxay Somaliland si xaragalana waa loo sii daayay waxa laaliya wixii sawiraya kamarada ahaana waa laga qariyay bal haddaba waxa la sheegayaa 9 maxbuus oo Puntland ay haysay anigu maxaabiista ma ogeyn ayay keeni doontaa oo lagu iibsan doonaa warkaasoo weli aan si rasmi ah loo shaacin ayaa jira markaa waxaan oran karnaa si kastaba ha ahaatee magaalada Jigjiga caasimadda marka ay soo gaaraan ayaynu ogaan doonaa tirada lagu sii daayay iyo sida ay kala yihiin iyo raggu ma boosaaso ku xidhnaa mise garoowe mise kuwii laascaanood baa qaarna loo soo waarday halkaas iyada anigu ma jeerteen inuu maxbuus yahay uma ogeynba halka haddii aan kaga imaado 10 nin ee ma jeerteen ay ku jiraan Cabdi Mudalib iyo ninka aarsada la yiraahdo inta ay caan ka yihiin iyo nin warsangeliya waxaynu soo gudbinaa arrimaha siyaasadeed ee maanta ka taagan gobolkii Soolbari waxa jira 15 garaad oo maamulka firdhiye uga sareeyay ayaa dhamaantood waxa shir degdeg la isugu baaqay in ay isu yimaadaan 30 bisha ilaa 1 bisha halkaasoo laascaanood gudaheeda shir uga qabsoon doono shirkaasoo rag fara badan oo intaan ay isu iman iskhilaafsanaana ay jiraanba waayahay ragga iskhilaafsan dhammaantood horta ragga iskhilaafsan dhammaantood waxa la doonayaa in halka la isugu keeno waayahay haddaba yaa ka maqnaanaya yaa saymanaya ragga horta halka imanaya waa dhulbahante khaas waxa weeye dhulbahante khaasa warsangeli wuu diiday wuu ka gacan taagtay sababtu u diidayna wuu isaga meesha ku cadahayba waxa weeye warsangeli hal degmo iyo hal meel laga haystaa ma jirto hal degmo iyo hal tuulo toona waxay yiraahdeen anagu
cidna doonaysa iyo cid dhul naga haysata iyo cid dhul naga qaaday iyo mid hore naga qaaday midna ma jiro SSC dan aan noo sheegteen annagu hiil baanu idinku nimi namaydaan arkin tii horena noomaydaan mahad celin haddaanu hartibanahay iminkana idinkuunbaa isarkay annaga noomaba aragtaano calankan aad samaystay aad leedahay reeraan ku xukumaya reerka miyaad ka talagelisay dee waa maya waxay noqotay geelu heesta wardheer iyo ha wadaaga biyaha oo aan walaal ahaan walaalnimadu waa wada dhalasho laakiin siyaasad rag kuma heshiiyo waana shiishka keliya maanta warsangeli iska qabtay goormuu laakiin arkay maalintii microfonka loo diiday maalintii mashruuciyadii Soomaaliya soo waaridey loo diiday maalintaasuu ogaaday bari iyadoo maamul la ka dhigo buuxo oo barasaaba la soo magacaabana maxay noqonaysaa bali taasi iyadu waa taa gobolkii Soola waa ka taagan tahay waliba garaadadii iyo siyaasiyiintii Puntland waxay ka sugaysaa warkaasina waa cadiya hawiye laba mid soo galaday waayahay laba mid soo galadii waxa jiray garaad Cabdiqani garaadka la yiraahdo oo xalay si aad iyo aad isagoo aad u canaanaya firdhiye iyo maamulka nimanka laascaanood ee maamulka jabhadda uu leeyahay waxayna bareen baa naga daran iyo taliyihii is asiray arrimo isdaba jooga oo jabhaddii maanta kala tageedi taagan yahay ayaa meeshii timi sababtay markii horeba reerun baa loo baaqi jiray reerihiina maanta meesha way ka baxeen war barnaamijka share gareeya subscribe YouTube-ka haddaanad hore ila joogin dhammaantiin waxaan ku soo gabagabeynayaa aragtida comment-gayga ila wadaag siday kula tahay maxaabiista maanta la sii daayay iyadoo aan wax sawir laga qaadin warqad ka soo baxdayna aanay jirin waayahay isweydiimaha faraha badan xogaha ka soo bixi doona war uma hayno balse laakiin inagu maxaad ku cabiri karnaa maxaad ka ogtay sagaalka maxbuus la yiri Puntland baa soo wada halkay ku xidhnaa jireen anigu ilay dadka xidhnaa waa dadka Hargeysa iyo reer Burco iyo ciidanka reer yiri Boosaaso cid naga xidhantay ma arag cida la siisanayana waa garan la ah waayahay heshiis siyaasadeed inay hawada isku dhaafsadeen labada madaxweyne ee maamul goboleedka Puntland iyo Somaliland madaxweynaha Somaliland ee diblomaasiga arrimo siyaasadeed inay ka wada hadleena waa proof marka waxa weeye arrimo inaga qarsoon laakiin wixii aynu arkaynay ayaynu inagu comment-ka ku wadaagaynaa waan salaamaya dhammaantiinba wamaadsantii